magaalada Muqdisho waxaa kulan soo dhaweyn ah loogu sameeyay maayarka degmada Laascaanood ee caasimadda maamulka SSC Khaatumo Cabdiraxiin Cali Ismaaciil. Soo dhaweynta ayaa waxa uu sameeyay dhalinyarada beesha Faqashine waxaana munaasabada ka qayb galay mas'uuliyiin xilal ka haya Khaatumo, saraakiil ciidan, culumaa u diin, nabadoono, haween iyo qaybaha bulshada ee beesha. Waxaa si weyn kulankan oo sidoo kale ahaa isxogwareysi looga hadlay halgankii Laascaanood ee dadka deegaanka ay ku go'aansadeen in iyagu ay ismaamulaan. Dadkii iyo mas'uuliyiintii ka hadashay munaasabada ayaa ku ammaanay maayarka Laascaanood kaalintii uu ku lahaa halganka deegaanka looga saaray maamulka Somaliland iyo in dadka reer SSC Khaatumo ay u istaagaan ka tashiga ayahooda. Maayar Cabdiraxiin kusoo dhawow caasimadda magaalada Muqdisho. magaaladaadi kusoo dhawow dad qalbi furan, dad ku suntan ka qayb qaadashada halgankii adigu aad qaybta weyn ka qaadatay. kusoo dhawow dadkii aad matalaysay ee caasimadda Laascaanood aad ku matalaysay, wajiyo farxad leh kusoo dhawow. waxaan kaloo runtii Cabdiraxiin Cali Ismaaciil anigu aan intii aan aqaanay ka aqaanay inuu yahay nin aad iyo aad runtii akhlaaq fiican, nin aad iyo aad ku suntan halgan iyo waliba sidii ummadda reer SSC Khaatumo ay u noqon lahayd ummad iyadu wax istarta, ummad iyadu noqota ummad la safata ama la mid noqota ummadda kale adduunka iyo kuwa Soomaaliba. isbedelo waaweyn baa ka dhacay deegaankii aynu ka soo jeedno oo Laascaanood u tahay caasimadda. isbedeladaas waxaa muhiim ah dhalinyaradiina inaad la socotaan oo aad ogaataan oo kulli maayarku uu wax inooga sheegi doono. isbedelada in lala jaan qaadaa loo baahan yahay. waxaa imanaya isbedelo dhinaca maalgashiga, waxaa imanaya isbedelo dhinaca horumarka oo deegaanku lama joogayo meeshii la joogay hore loo joogay waa laga soconayaa. marka fursado badan baa imanaya mustaqbalka marka dhaqaaluhu uu kor u kaco ee deegaanku uu horumaro oo la xiriira yani isbedelada ku yimid. dadku way isku tashanayaan, iyaga ismaamulaya, iyaga wax qabsanaya. innagana dhalinyaradeena waxaa laynaga rabaa, dhalinyaradeenna anagu idinku jiraa in lala qabsado oo horumarkaa imanaya iyo wax soo saarkaa imanaya laga qayb qaato. kulankeena caawa wuxuu daaran yahay kulay soo dhaweynta maayarka Cabdiraxiin Cali Ismaaciil. waxaan leeyahay maayar soo dhawow, ku soo dhawow caasimadda Soomaaliya, ku soo dhawow magaalada Muqdisho, ku soo dhawow mid laga jecel yahay. soo dhawow maayar. kula Cabdiraxiin Cali Ismaaciil maayarku wuxuu ku jiraa mas'uuliyiinta ugu firfircoon halgankii dheeraa qaybta lixaad kale ka qaadatay. waxaa la dhahay war magaalo waraaq ku yaala, wax walba miidiya yaalaan, aad ayaa loola socday halgankii dheeraa qaybta lixaad kale uu ka qaatay maayarka. nin macnaha dee lagu soo duulay oo kooxiisa baan iska kicinay dalkeenu baan xoreysanay, cidna wax dheeraada maynu tarin. halka taasaan ka leeyahay Faqashine iyo Lubahantana kulli maanta ma aaminsani dad wax kale leeyihiin, dad dhuuxoodii dhigooda israacay baan ka aaminsanahay kulli. wiil yaabtigi, wiil yaawowgi, wiil seedigi waa town. marka taana waxaan leeyahay waa sida uu sheegay ninkaas hala sii xeeshiyo hala sii koriyaan ka aaminsanahay nin walba halka ka beegto sida sii maro. waxaan idin sheegayaa kulli waxaan u maleynayaa halgankii ma dhammaan, cadawgiina halkiisii soo fadhiyaa wayna soo eegayaa weli. marka waxay la tahay taa laftirkeeda tababarasho cusub iyo dardargelin cusub iyo dhaqaalo cusub bay la tahay hawshu inay ku sii socoto. waana isku tashi hadeero waxay la tahay kulli sida runtii maamulo iyo dawladda kale kuma tirsanina waa isku tashi. waxaan leeyahay abti soo dhawow, ku soo dhawow deegaankaagii iyo dadkaagii Khaatumo. runtiina marka wax dhacaan raggu ma sinaado. runtii isagoo maamula oo qiimo ku leh oo dhaqaale ku leh oo sharaf ku leh ayuu wuxuu u xadfaxaytay inuu dadkiisa iyo deegaankiisa la wadaago, dareenkooda la wadaago. runtiina aniga wuxuu igu qorayay qolada Soomaaliland oo mujaahid baa oran jirtay, mujaahidka koowaad ee gobolka Sool ayuu igu qorayay Cabdiraxiin. aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay. ku soo dhawow gudoomiye, wixii aad deegaankaaga ka qabatay hadday ahaan lahayd dhismaha waddankaaga iyo deegaankaaga,
hadday ahaan lahayd dagaal iyo difaac iyo rag iska celin runtii intaba waxaad ku leedahay sumad aad iyo aad u qiimo badan. annagu waa wada shaqaynay waxaanu ka shaqaynaynayna waxay ahayd dhibaatadii gobolka Sool ka dhacday runtii SSC Khaatumo lagu soo duulay. Cabdiraxiin wuxuu ahaa maayarkii markaa joogay runtii dadka bulshada u adeegay u shaqaynayay markaaba qiimo badan buu ku lahaa. isla markii dhibaatadu dhacdayna go'aan wuxuu qaatay inuu dadkiisa iyo dalkiisaba badbaadiyo isagoo nin dhalinyaro ah oo rag badan oo runtii ama xilal ka fiican hayay ama ka weynaaba ay runtii ka gaabsadeen. waxaan xasuustaa maalmihii ay ugu darnayd lafdhabarka deegaanka maamulayay ee fududeeyay wax kasta oo dadkani uma taqaanaayay awood ku yeelanayo kow ka ahaa. haddii SSC dhalatay waxaan dhihi karaa qofka koowaad ee ka dhalatay markaa maamul gacanta ku hayay ee gobolkan isu taagay isagu ahaa. aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa qiimo iyo sharaf buu deegaanka iyo innagaba inagu leeyahay isagii ragga kale ee mas-uuliyiintii halkan joogaaba. waxaan leenahay awow abti ku soo dhawow caasimadda qolyaha kale reer caddeeyay munaasabadda soo qaban qaabiyey iyagana aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa sida ay hawsha u soo abaabuleen iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay idinkuna rag waxa laga yaabaa dhalinyaro badan oo maanta xamar ku dhalatay inaanay deegaankiiba arag ama ku noqon oo iska reer xamaroobeen. jiilashu isbedelayaan waxaynu u baahannahay in iyadoo halkan magaaladeennii tahay caasimaddii in haddana deegaankii iyo meeshaad ka soo jeedeen hadday horumarkeeda tahay iyo hadday dibudhiskeeda tahay iyo hadday waxqabsigeeda tahayba dee aydaan ilaawin dhinacay u tahayba. maayarka Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo ka hadlay gabagabada munaasabadda ayaa u mahadceliyay dhalinyarada Faqashini ee soo dhaweynta ugu sameeyay magaalada Muqdisho. waa idin mahadnaqayaa beesha reer Faqashini mahad Ilaahay kaskow aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. daanu reer Faqashini aan ahay waxa laga yaabaa nin kasta oo reer Faqashini inaan haddaan isaga garan waayo aabihi ama awowgii baan garanaya. arrinta dagaalka iyo qoriga ma aha arrintu iyadoo dagaalkii ku jirtaan oo qoriga ku jirtaan oo raggii uu ku dhimanayo oo uu ku dhintay oo haddana difaaca si buuxda aad ugu jirtaan oo reernimo iyo aynu ku qaybsanay iyo xaafad dagaalka oo aad qaybtiinii ka soo baxdeen. haddana waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa arrinta siyaasiga aad xamar ka haysaan. waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa sida aad safaarad weyn aad ugu tihiin dadkii aad ka mid ahayd inay deegaanka iyo maamulkiinii qof kasta ama shacab ha ahaado ama mas-uul ahaado airportka ka soo degaada airportka ugu taagan tihiin u soo dhaweynaysaan niyadda wanaagsan iyo qalbiga aad wanaagsan aad ugu soo dhaweynaysaan baan idinku bogaadinayaa doorkiinii baad leedahay. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho.